gabadhan waxa ay qolkeeda la seexan jirtay bisad ay iyada korsatay. Maxaa dhacay markii ay dhimatay kadib? Waa arrin yaab leh. Inta aynaan muuqaalka u gudagalin, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka, la wadaagto asxaabtaada. Mahadsanid. Gabadhan waxa ay barbaarisay oo xanaaneyn jirtay bisad aad u yar. Waxay siisay jacayl aad u daran bisadeeda. Guriga waxaa ku noolaa ayada iyo bisadeeda oo kaliya. Gabadhan waa gabar la qabo, ninkeeduna waxa uu ku maqnaa dibadda. Gabadhan waxa ay aad u jeclayd bisada, sidoo kale bisadiina aad ay u jeclayd gabadha. Bisadii waxa ay dareemi jirtay naxariis marka ay la joogto gabadha oo ahayd saaxiibteedii koowaad. Jacaylka ay labadooda isku qabaan waxa uu gaaray heer uusan joogi karin midkoodaba midka kale la'aantiis. Jacaylkoodana waxaa laga ogaaday xaafadii ay degnayd oo dhan. Maalin maalmaha ka mid ah waxa aad u xanuunsaday bisadii. Gabadhiina waxa ay u carartay dhakhtarka si ay daawo ugu hesho. Bisadiina waa ay raysatay. Maalmo kadib gabadhii ayaa zaid u xanuunsatay. Dhakhtarkii ayaana loola cararay. Markii la geeyay dhakhtarkii, qadarkii Alle ayaa qabsatay gabadhii oo waa ay dhimatay. Markii ay dhimatay gabadhii, bisadii aad ay u murugootay. Waxa ayna dareentay inay weysay garabkeedii midig. Waxa ay ka qayb gashay janaasadii. Markii qabriga la geynayayna waa ay la socotay. Markii la aasay kadib, dadkiina ay isaga soo laabteen qubuurihii, laakiin bisadii ma aysan ka soo tagin qabriga gabadha. 3 maalin ayaa ka soo wareegatay. Dariskii gabadha ayaa waxay isweydiiyeen halka ay ku dambeyso bisada. Waa ayna raadiyeen, waa ayna waayeen. Mid ka mid ah dariskii ayaa yiri, waxaan arkayay iyadoo janaasada la socoto ina keena aan qabriga gabadha agteeda ka soo fiirinay. Markii la tagay kadib waxa ay arkeen bisadii oo dul jiifto gabadhii qabrigeeda, naftana ay ka baxday oo ay geeriyootay. Waxayna u geeriyootay murugtii ay ka qaaday dhimashada saaxiibteed darteed. Dulucda sheekada waxay tahay inaan iska fiirino qofka aan la saaxiibayno ama aan ka dhiganayno wehel si ay noogu xanuunsadaan ama noogu xasuustaan geerideena kadib, kuna soo duceeyaan, kuna weydiiyaan inuu dambigaaga Alla dhaafo. Haddii aad maal leedahay oo aad samaysato saaxiibo xun, waxay kugu qasbi doonaan in maalkaaga meel xun ku bixiso. Haddaba aan iska ilaalino saaxiibada xunxun si aynaan u shalaayin geerideena kadib. Intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa muuqaalka maanta. Haddii aad ka heshay sheekada, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka, lana wadaagto asxaabtaada. Halkan ku cad saaxiibkaaga ama saaxiibadaada aad u jeceshahay, una sheeg inaad dar Alle u jeceshahay. Mahadsanid.